dhalinyaradan inta badan waxay isticmaalaan videos ku xiran xuquuqda copyright waxayna waqtiyo badan la kulmaan xuquuqo copyright oo dili kara janalkooda. Laakiin maanta waxaa kula wadaagi doonaa qaab ama farsamo aad isaga ilaalin karto copyright strike. Inta badan markaad isticmaasho video qof kale leeyahay oo janalkaaga imaado qofkaas videogaaga arko oo uu waayo meel uu kaaga la soo xiriiro, waxaa inta badan dhici karto in si directly ah videogaaga u strike gareeyo. Laakiin markaad Gmailkaaga dhex dhigto YouTube customizationkaaga, waxaa boqolkiiba boqol fududaan doonto inaad qofkaas kaala soo xiriiro kadibna si fudud aad isaga deledo videogaas. So waxaa ku tusi doonaa step by step sidii aad u samaysan lahayd qaabkaas. Okay, markaad imaato YouTube-kaaga kadibna aad tagto customization kadibna hoos u dhaadhacdo laba option aa ku furan marka inaad Gmailkaaga dhex dhigto descriptionka iyo inaad samayso meeshaan ay u qoran tahay link kadibna inta Gmailkaaga dhex geliso halkaan aad u qorto contact ama direct halkaan aad geliso Gmailkaaga. So labadan option aa ku furan marka qofka si directly waa kula soo xiriiraa kadibna wuxuu ku dhihi karaa videogan ka saar. So please subscribe to ilo interest badan aan soo wada saaxiib.